السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa xogsida media ee ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo hadalhaynta bulshada. fadlan hadday tahay markii koobaad aad soo boqoto kanalkan ha ilaabin inaad subscribe garayso gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaran xogta maalinlaha ah ee halkan aan ka soo gudbino kuna soo dhawo muuqaalkeena maanta. bismillaahir rahmaanir rahiim. qodobada aan maanta inahayna waxaa ka mid ah qoysaskii dadkii lagu dilay Shabeellaha Hoose dagaalka u dhexeeyay ururka Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM ee dalka Uganda oo maanta isugu soo baxay dibadda isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho iyo doorashada aqalka sare ee Puntland oo bilaabatay iyo sidoo kale Galmudug oo soo saartay liiska musharaxiinta doorashada aqalka sare. qodobadani ayaan ku faahfaahin doonaa muuqaalkeena maanta. bal aan ku hormarno rabshada ka taagan afaafka hore ee isbitaal Digfaar ee magaalada Muqdisho. dibadda isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho waxaa isugu soo baxay ehelada 7 qof oo shalay lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii uu dagaal dhexmaray ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Uganda iyo kuwa Al-Shabaab. ehelada dadka laga laayay ayaa ku eedeeyay ciidamada Uganda inay si bareer ah u dileen 7 qof ay dhamaantooda ku sheegay inay ahaayeen dad rayid ah oo isla markaasina aan waxba galabsan. ehelada waxa kale oo ay sheegay inaan la aasi doonin meydka ilaa ay cadaalad ka helayaan. meydadka 7 qof ayaa hadda lagu hayaa qaboojiyaha isbitaalka Digfaar iyadoo xalay baaris lagu diray xarunta dambi baarista booliska ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah qoysaskii dadkii lagu dilay shalay Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in meydadkan aan la aasi doonin ilaa ay ka helayaan cadaalad. qaar ka mid ah dibadbaxayaashii halkaas uga soo baxay oo dowladda codsi u dhiibtay wuxuu ku yiri sidaan: mar walba noolaayaan, mar walba Soomaali ahaan noolaayaan, ma noolaayaan Yohannes Manrasa beeraan inay qaataan dhulkeena qaataan nugu laayaan Yohannes. ciidamada AMISOM si ula kac ah inay u dileen dadkaas, hilibkoodii jarjareen, hantidoodii baabi'iyeen, saacado badan laga bixi waayey, ay diideen in la soo qaado. arrintaas waxay keenaysaa inay tahay dembi ciqaabeed international ah, national ah oon laga maarmaynin in cadaaladda la isa saaro. arrintan waxay ka beddelan tahay arrimihii hore oo dhici jiray. waxaa ballan shacabkan u ah in aan la duugin meydka la aasin ilaa AMISOM abalajays ka bixiso, caddayso inay dad shacaba laysay, mas'uuliyaddeeda qaadato. doorashada aqalka sare Puntland oo bilaabatay. waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Garowe ay ka dhacdo doorashada xubnaha aqalka sare oo ku matala maamulka Puntland. madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray liiska 22 musharax oo u taagan hanashada 11 kursi ee Puntland ay ku leedahay aqalka sare. liiska ayaa waxaa ka maqan 9 ka mid ah xubnaha ka tirsan baarlamaanka oo muddo xileedkiisii dhamaaday. waxaa hadda si rasmi ah bilaabatay doorashada aqalka sare ee maamulka Puntland xilli ay codeynayaan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas. qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamay doorashadaasi ayaa tanaasulay. musharaxiinta ayaa khudbad ka jeediyay goobta ay doorashada ka socotay, waxaana lagu wadaa in maanta la shaaciyo xildhibaanada Puntland ku matali doona baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. dhinaca kale, Galmudug oo soo saartay liiska musharaxiinta doorashada aqalka sare. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaafi Qorqor ayaa soo saaray liiska musharaxiinta 6 kursi oo kamid ah 8 oo maamulkaasi ku leeyahay baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. 2 kursi ee dib loo dhigay ayaa kala ah kuwa ay hadda ku fadhiyaan Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid iyo Cabdiwaaxid Ilmi Gonjaah. siyaasiyiinta laga reebay liiska ayaa waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad Senator Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari. doorashada 6 kursi ayaa lagu wadaa inay dhicin doonto maalinta Khamiista ah. wixii warar oo intaasi ka soo kordha halkani ayaan in kula wadaagi doonaa insha Allah.